السلام عليكم waxaan salaamaya guud ahaan dadka Soomaalida adeer macaan waxa jirta waxa iga maqan laba gabdhood ma garatay oo aniga aan dhalay iga maqan 2002 ilmahaas iga soo baxsadeen طبعا لحسن marka waxa jirtay gabadha oo ilmaha ii dhashay gabadha horta waxaan isguursanay 1988 1988 isguursanay dawladii maxamed siyaad barra jirtay waxaan isku guursanay magaalada Beledweyne tuulo kamid ah isku guursanay ma garatay waxa la yiraahdaa dhuur dheere meesha san ku qabay meesha isla deganeen waa ku wada nooleen xilligii jabhadaha oo dagaalkii jabhadaha ay bilowdeen oo jabhadaha oo dawladdu ku kacsanaa dawladii maxamed siyaad barre waqtigii jabhadaha bilowdeen ayaan meesha ka soo baxnay waxaan soo galnay xamar markaan soo galnay sagaashankii ayadoo la qaxayo ayay jidka waxa igu sii dhashay wiilay ku dhashay ma garatay wili ma isa dhalin labada gabdhood wili ma isa dhalin sheekada bilaagun kaga soo bilaab markii ay cunugiga dhashay cunugii waa naga dhintay uuray yeelatay uurkii markii yeelatay kaniiniga malaariyada cuntay cunugii waa iska soo riday waxa ilmaha iskaga soo riday ani ayda isku xanaarnay waa kala tagnay furiin ay noo kala gaartay waa kala tagnay furiinkii aan furi caawdiisa u yeeshay waa la joogay xilligii dambe oo Yunus iyo meelaha ay yimaadeen aan shaqo ka helay waa itimid waa isku soo noqsanay waa isna kaxsanay sidaan ku soo guursaday markaan guursaday uur ay yeelatay gabar ay dhashay haddana uur kale yeelatay gabar kale ku dhashay markaas gabadha dambe intayna dhalin ay wixii tiri safaran galab oo saasan rabay inaan aado dhulkaasaan rabay inaan aado iyo walaalkay meesha jooga aan rabay inaan oo meesha ugu tago waayahan iri sidaan ku diray markaan boosaas u diray boosaasay tagtay boosaasay marka si hoose ay ugu sii baxdoon yar oo ayada walaal oo dhinaca hooyada iskala dhasheen oo la yiraahdo Ibrahim Umar Liban la yiraahdo ala soo hadlay wuxuu yiri waxaan rabaa inaan dibadda ku diro ninkaan rabaa inaan iska furtido uu yiri inaan dibadda ku diraan rabaa oo aniga aan ka dhigo ninkii ku qabay oo aan ku qabay adigna aan naagteedii ka dhigto oo sidaas aan kugu wadaan rabaa waayahay tiri sidii uu kula heshiiyay xafladay sameysteen oo xalwadii wixii afku liisu gurgelinayay xafladii waxay sameysteen oo baxay wuxuu soo dhimay aniga boosaas ay jirtaa markaas inay naagtiisa tuu soo dhameystay gabadha hal gabadh kaliya ka tagtay gabadha kale uuray la leedahay meeshii tagtay ilaa ninkaana jaala soo diyaariyay barnaamijka la soo diyaariyay barnaamijka la soo dhisay waxaan la soo dhisay aniga war uma hayo ma gano waa soo noqotay ayadoo xaamil ah oo xaamil calum weyn ay soo noqotay markay soo noqotay xamaray timid xamaray isla joognay xamaray ku dhashay ma garatay barnaamijkii markuu diyaarsan yahay waxay tii cunugtan iyo cunugan kale adigu kuma dhiibi karo naa kala qabtay kuma dhiibi karo walaashan dhibanay tiri waxaan rabaa tiri inaan safar kala galo meesha aan ku noqdo waayahay sidii ku baxday safarkii xaqii aaday waaba si dhooftay yarkii ninkii oo naagtidan ku wada dhahay sidii uu ku waday dibadda aaday labadii gabdhood waxay noo joogaa xamaray joogan gabar walaasheeda haysa waxay samaysay labadii gabdhood meesha jooga ayay dacwo u soo gashay waxay isku soo diyaarisay waxa waday oo gabdhaha waday yar walaalkeedu Cabdiraxmaan kii hor Ibrahim Umar Liban aliya kan waxa la yiraahdaa Cabdiraxmaan Umar Liban midka hadii ilma wadaayo xamaru ka waday waa isqabna naagteedu way laakiin shoobaray u wadaayo shoobar iyo barnaamij badan shoobar badan u wadaa waa baxday ilmihii dibadda la geeyay ilmihii waa la waday Addis Ababa la geeyay Addis Ababa marka la geeyay ninkaana meesha ku hayay waxay samaysay viisi ilmaha soo heshay ninkii wuxuu yiri ilmaha dhiibi ma uu yiri haddaan dhibaan maxay iidan oo yiri markaas waxay kula heshiisay inay qadar geyso lacag $3500 ay siisay 4 sano meesha ku haystay asaga meesha ku haystay waxaan waa warma in ilmihii laba baxsado la faqdo Addis Ababa la galay amba uga meel aan u raaco meel aan u maray meel kale aan galay waxaan galana waa la ah ka bacdi waa baxday naagtii waa ilmihii sidii ku waday ninkii sidii loogu waday 4 sano markii haysta laga waday waxa la geeyay Norway la geeyay waxay ku guursatay ninay ku guursatay meesha nin kale guursatay oo naga dheereen ninkii lafaantiisa oo lagu hadalsiina dirit ninkii lagu hadalsiina maya way hadalkeeda wixii markaas ka dambeeyay hadalkeeda ma baxayn hadalkeeda dhan waa waayayba waaga maqan tahayba idhaday male waaba baxsad ayada iyo ilmihii kulli baxsaday biga yihiin waaga baxsadeenba sidii markay meeshii ku tagtay oo meeshii ay joogtay ninkii guursatay ma garatay ninkiyaas ay 3 cunug u dhashay ilmihii gabdhihii aniga aan dhalay waa weynaadeen ninkii ayada isku dhacay sidii ayada sheegaysa waxay ayada sheegtay inuu ninka ilmaha fuuli jiray sheegtay
ilmahayga inuu fuuli jiray oo sidii hadda ayada sheegtay oo documenti aan haya hadda ii soo dirtay email aad leedahay waa ku soo diri doonaa sidii documenti iigu soo dirtay waxay tiri ilmihii iyo odagii ilmihii yaa fuulaya saasay ii sheegtay waa la isqabtay maxkamada la isgeeyay ninkii naagtii waa kala tageen aniga war uma hayo waxaasoo dhan markii dambe waxaa isoo wacay ninkii isoo wacay wuxuu yidhi niyow naagtaas oo heble la yidhaahdo anaa guursaday oo qabay sidii hadda aniga ii sheegtoon maqlayna inaa adiga qabtay ii sheegtay naagtii waa ilmo kale ii dhashay dhibaataa naga dhex taagan hadda waa kala tagnay maxkamadan isgeynaynaa dacwaa noo socota waxyaaba badan noo socda arrintaas ka waran uu yidhi ninkii yaa isoo waca oo ay iskhilaafeen kala tageen waa 2016 isoo waca markuu isoo wacay wuxuu yidhi saasaa jirta marka waxaad yeelaysaa nin yahow arrintaasaa jirta uu yidhi waxaad yeelaysaa ilmahaaga haddaba u dacwoon kartaa dacwaad gali kartaa haddii aad ilmahaaga rabto sida wax lagu helaayo ii sheegay magaalada ilmaha degan yihiin ii sheegay magaalada molde ilmaha intay leeyihiin ilmihii waa weynaadeen uu yidhi saasuu yidhi waxyaaba badan ii sheegay ninkii aniga waa baxay xoogaa lacaga asigaa ka helay waa baxay waxaan aaday Addis Ababaan tagay meesha safaaradda Norway aan tagay safaaradda Norway waxay yiraahdeen ilmahan waa ilmo waaweyn oo 20 sano gaaray dacwadooda laguma qaadi karo dacwadooda laguma qaban karo waxaad yeelaysaa ilmahaas heli mayso tiri markaan meesha tagay yar oo walaalo aan oo meesha joogay anigana ii yaqaano ayadana walaal ay yihiin ninkii ayada wacay anay maxaa ku keenay tiri ilmahayga raadinaa iri ay iyo aflagaaday gashay aaday iyo aflagaadaysa aaday wacaytantay markii dambe telefoonka demisay sidii aan ku soo baxay Soomaaliya ku soo noqday xamaran ku imid xamaran joogay xamar anigoo jooga idaacadda yiraahdo maqal radio oo Norway ka hadasha idaacadii ka hadlay wareysatay idaacadii markii ay wareysatay oo wareysi leega qaaday warkii ayadana waa maqashay ilmaha waa maqleen Soomaaliya adduunyada waa laga maqlay ma garatay warkii markaan sii daayay ninay ii soo dirtay ninka ay soo diraysa waa ninkii ilmaha waday soo diraysa oo wuxuu joogaa buladayn uu joogaa ninkii ii soo dirtay waxaad yeelaysaa ay tiri niyow ninkaasi aniga waxaan u qoray dhimasho ninka ina ilmahan dhalay waa dhintan iri wax yeeloon ii geysan karaa waxaad yeelaysay ninkaas ma dambe Yuusuf hadana la yiri ninkaasi Yuusuf hadan meel loo yeelo in la dilo qorshaha ahaa dilkii waa laga baxay marka ninkii barnaamijkiisa waa laga war helay inuu meesha soo baxay waa laga war helay inuu aniga soo aaday waa laga war helay marka laga war helay dilkii waa ka baxay wuxuu galay maxkamadda dawladda tagay maxkamadda dawladda waa sanadkan gudihiisa 2018 kan waay dhowr bilood ka hor waay ma garatay ninkii dacwad maxkamadda tagay warqadu ka soo qaaday wuxuu keenay si ay dhiido keenay Soomaaliya wuxuu yiri ninkan waa naaf laga deeyay reer dhisnaayo baabiyay waana dulmiyay waxaan rabnaa marka in nalaga qabto yiri si ay dhiida aniga liiga yeeray si dhaqso ku maawlin si ay dhiidaan tagay marka intaan aadina waxaan sameeyay rakano aan aqaanan oo odayaal oo meesha laga yaqaan macriifo aan hor u sii watay dadkii ana isla tagnay dadkii magaalada isla tagnay ninkan maxaa lagu haystaa leeyay ninkan naagu aflagaadiya leeyay oo dibadda joogtay ninkan cidna aflagaadeen ninkan waxaan iri aniga cidna aflagaadeen ilma iga maqan waxaan ka hadlay idaacadaas maqalan ka hadlay ilmaana iga maqan sidaas awoodeed aan u hadlay marka hadii ilmahayga aan aad ku yeelanayna waa gooni ardambi hada ku yeelanay sidii aan ku tagay ninkii meeshii si ay liiga yeeray moogtay si ay markaan tagay barnaamijkii asaga u watay barnaamijkayga leesla meel dhigay ninkii la xiray ninkii marka la xiray waxa yimid odayaala yimid waxay yiraahdeen ninkan miskiinka ah waa ogtiina tireen oo asig soo dacweeyay inuu rabay inuu xiro waa ogtiina hadda aniga ka guuleystay say ku leedahay hadda siida adig markii waa ogeeday arinteena waa ogeedeen sharcigu kala bax waa taan tiraadeen say u dheeysay waxaad yeelaysaa yiraahdeen ninkii ehelka qaraabada waa nin walaalka ilmihii iyo naagta lagu hadasiina ilmaha lagu hadasiina khidma meel uu saara dokumenti la kala qorana ninkan noo soo daayay waayahay ninkii sida ku soo daayay ninkii markaan soo daayay markii ilaahu faqiyo ahaaye ayda ilmihii waa soo hadalnay maantii labaad ilmihii markay aan sugay inay ila hadlaan sugay ilmihii oo caaytamaya masad ii soo qoray aflagaadaynay dadii aniga aan dhalay leedahay iyada wax u sheegayso waxay leedahay saas dhaha maxay yeelay ninkan dhimashan u qoray hadii uu aad la hadashin aniga dhibaato u gaar karto
ilmihi ay aflagaaday way caayeen waxay yiraahdaan anigana wanaagan ugu bedelay waxay joogaan markii dambe masawirradooda markii caada khadkay ku jireen markii dambe masawirradii waa baabi'isay ayada khadkay ku jirta khadkii waa baabi'isay wixii markii ninkiina waa fakaday waa baxay ninkii waa fakaday wuxuu aaday dhulkii dib ugu noqday wixii ay fashilmeen asagana waa soo ilmay dib ugu noqday magaalada Beledweyne ku noqday markuu magaalada Beledweyne ku noqday Beledweyne uu tagay kuwii odayaasha ah xogaa ay qaateen xogaa lacag ay qaateen ayagana duurkooday galeen ruuxaan barnaamijka isku ogeyn iyo waxa waaye waa heshiisaan dhignay waxaad yeelaysaa ilmihii lama hadlo maxaad ka leedihiin oday oo wax la siiyey muxuu ku taraa sidii marka ay hadda iiga maqan yihiin waa markii labaad war uma hayaba waxaan war ka haya male waa ku gargaara uu leeyahay naagtaasaan guursaday dhibaato badan ay marisay uuray ilaheeda iska soo riday dhibaato badan ay marisay maadaama dhibaato ay marisay an ilma ay ka maqan yihiin ilmahaaga adna qabso raadso anna ilmahayga raadsana dacwadaas oo sidaas aad samayn kartaa maxkamadan galaynaa waqti hebel maxkamadan galaynaa wiiri dokumenti aan aniga hayo warqadihii nikaaxa iyo wixii aan hayay dokumenti aan aniga hayay aan u diray asagaan u diray maanta maxkamadda la geeyay asaga warqadihii soo wato maxkamadda la tagay wuxuu yiri naagtan nin hor u soo baabiisay hor u soo gubtay dokumentigiisii waa kana lambarkiisii waa kana la hadlo yiri dokumentigii wixii meesha geeyay maxkamaddu waxay yiraahdeen hadduu ninka Soomaaliya joogo labadiinaan hadda nala jooga labadiinaan garta idin qaadayna kan kaas oo kuma leeyahay marka sidii marka ay warqadihii meesha ku geeyay dacwadii meesha waa taala hadduu ilaahay waa taala maxkamaddu waa taala naagto gaala aha joogta oo magaceed hadda aan hayo ilmahaygi aan balla ahayba maxaa yeelay ilmahaygi aan la ahay waxa ka u baahanahay dadka Soomaalida ah ee muslimka ah Soomaalidu waa isu gargaartaa waa aad iyo aad isu gargaartaa guud ahaan Soomaalida waxaan ku codsanayaa inay arintaas igula gargaaraan qofkaas dambiilaha ah oo cunug iga soo riday ilmahaas igala fakaday hadda waxay dhisatay laba guri ka gadatay magaalada Beledweyne ma garatay ilmaha waxaa loo xukmiyay lacag gaaraysa $700 ilmaha loo xukmiyay ninkii xumaatada uu sameeyay $700 loo xukmiyay gabdhii la furu xukmiyay waa labadeedii gabdhood waxaa loo xukmiyay lacag $700 ah hadda sidaan maqlay bajaaj gadaan maqlay guri kalena waa gadaan maqlay magaalada Beledweyne waaye meel kasta daan maray cid wax iga qabatay waa ninkii aadab lacag siinaysa heerka ay hadda joogto waa aragto lacag intay soo dhiibtay nin inuu u xiro loogu soo talagalay ama in liidi loogu talagalay Soomaaliya loo soo diray magaceedu waxa la yiraahdaa Muslim Xasan Xuseen laakiin website waxaan maqlay Xuseen ka hore la soo mariyaa Xasan ka gadaal la mariyaa ma garatay Muslim Xasan Xuseen la yiraahdaa waxay degantahay Norway magaalo la yiraahdo Morde waxaan ku soo diray waa lambarkeeda hadii ay ka qabanayso iyo hadii kula hadlayso bal lambarkeeda waa ka